السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xasuusta iyo ilowshuhuba waa wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abuuray bini'aadamka, laakiin dadka ayaa kala xasuus iyo faham wanaagsan. Xasuusta bini'aadamkuna waa mid hoos u dhici karta, korna u kici karta oo wanaagsanaan karta. Haddaba waxyaabo dabiici ah oo ay khubaradu sheegeen inay kor u qaadaan xasuusta ayaynu ku soo qaadan doonaa muuqaalkeennan, waxaanay kala yihiin sidan soo socota. Toontu waxay furtaa isu socodka dhiigga ee jidhka oo dhan, waxaanay qayb weyn ka qaadataa inay maskaxdu noqoto mid caafimaad qabta oo xasuusteeduna ay wanaagsan tahay. 2. Caleenta geedka ikliiru jabal ayaa isaguna ah mid aad ugu fiican caafimaad qabka maskaxda ilaa xadna kor u qaada xasuusta. 3. Isticmaalka caleenta geedka rayxaan ayaa isaguna hoos u dhiga warwarka ilaa xadna kor u qaada xasuusta maskaxda. 4. Malabka saafiga ah oo subaxda hore la isticmaalo ayaa isaguna xasuusta qofka bini'aadamka ah ka dhiga mid ilaa xad wanaagsan. 5. Inaad isku darto 3 shay oo kala ah sinjibiisha, waxoogaa xabaasuuda iyo malab saafi ah, kadibna aad hal qaada cunto subaxda hore ayaa iyaduna si la yaab leh kor ugu qaada xasuusta qofka. 6. Inaad si joogta u cunto waxoogaa sabiiba ayaa iyadana lagu sheegay mid ilaa xad u wanaagsan xasuusta qofka. 7. Filfisha cad oo cuntooyinka lagu darsado ayaa iyaduna xasuusta qofka ka dhigta mid cajiiba. 8. Xubuubi liqaax oo laga sameeyo malabka shinnida ayaa isagana lagu sheegay mid mucjiso ka dhigaya xasuusta qofka bini'aadamka. 9. Qarfaha oo malab lagu darsado lana cuno ayaa isaguna gebi ahaanba meesha ka saaraya ilowshaha badan. 10. Timirta oo si nidaamsan loo cuno si joogta ah ayaa iyaduna ilaa xad wanaajisa xasuusta qofka. Mahadsanidin.